anigoo ah Iidlaadan Maxamed kana mid ah wariyaashii maanta nasiib ku helay inay ka faa'iideystaan tababarkan socon doona muddada 3 maalin ay soo qaban qaabiyeen ururka suxufiyiinta SWJ. xaqiiqatan tababarkan wuxuu ahaa mid ahmiyad gaar ah noo leh inaga marka aan nahay wariyaasha xirfadan ku guda jiro. dabcan waxaa jira doodo fara badan oo aan noo dhaxeeyay annaga iyo tiim kale ee gabdhaha ka qayb galayay. wuxuuna tababarkan mid ku saabsanaa u sinaanta shaqada marka u sinaanta goobaha shaqada ee ragga iyo dumarka. doodo fara badan iyo aragtiyo badan ayaa jiray oo labada dhinacba ka imaanayay. dabcan wuxuuna ahaa tababar waqtigii loo baahnaa lagu soo beegay, muhiimna ay tahay in lagu soo celceliyo si loo muujiyo in ragga iyo dumarkaba gaar ahaan gabdhaha iyo wiilasha mihnadan ku guda jiro ay si siman shaqadan uga qayb qaataan. xaqiiqatan waxaa si guud challenge-ga la sameynaya, waxaa si guud aragtida labada dhinacba ka soo baxay ahayd in diiradda la saaro sidii loogu sinaan lahaa goobaha shaqada marka ay timaado oo ragga iyo dumarkaba si guudna marka laga tago mihnadan xitaa fikirro kala duwan ayaa jira oo dhinacyada ka imaanayay. waxaana jeclaan lahaa in tababarada noocan oo kale wariyaasha lagu soo celceliyo si ay wax badan uga fahmaan mowduucyada noocan oo kale oo ahmiyadda gaarka noo leh. waxaan u mahadcelinaynaa SWJ oo tababarkan soo qaban qaabisay. xaqiiqatanna waxa uu ka mid yahay tababarada aadka loogu baahan yahay marka ay timaado dhanka shaqada, maxaa yeelay muhiimad gaar ah ayay noo leedahay annagoo wariyaal ah in aan mowduuc noocan oo kale ah kulamadoodo iyo aragtiyo kala duwan aan ka qayb galno. aadna waxaan u mahadcelinayaa SWJ oo tababarkan soo qaban qaabisay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Maryam Ladan Xuseen. waxaan ka mid ahay wariyaashii maanta ka qayb qaatay tababarkan ay qabanaysay ururka suxufiyiinta SWJ. tababarkan maanta wuxuu ku saabsanaa sinaanta xagga shaqada ee ragga iyo dumarka. runtii wuxuu ahaa tababar ahmiyad weyn siinaya dumarka iyo kalsoonina siinaya gabdhaha marka ay joogaan goobaha shaqada. wuxuu ahaa tababar aan waxyaabo badan ka faa'iidnay. runtii waan u mahadcelinaynaa cid walba oo soo agaasintay tababarkan. waxaanan mataqaanaa ku boorin lahaa in tababarada noocan oo kale la joogteeyo si mataqaanaa aqoonta gabdhaha xagga xirfadooda kor loogu qaado, isla markaana ay kalsooni u muujiyaan marka ay joogaan goobaha shaqada. tababar wuxuu ahaa runtii aad muhiim u ahaa, loona baahnaa mar hore in la keeno, balse ilaahay mahadiis hadda naloo keenay. waxyaabo badan baa ka rajayn karnaa in tababarkan gabdho kaliya kama soo qaybgelin, wiilal baa ka soo qaybgalay. in wiilashu ay mataqaanaa marka xagga shaqada loo eego ay gabdhaha ixtiraam weyn siiyaan, in gabdhaha laga qaybgeliyo mataqaanaa shaqooyinka iyo xilalka kala duwan ee goobaha shaqada, ha ahaato miidiyaha, ha ahaato shaqooyinka kale la qabto, in gabdhaha ay helaan shaqooyin fiican iyo ixtiraam fiican. waxaan rajayn doonaa in uu dhaqan galo, gabdhuhuna ay noqdaan kuwo meel kasta shaqo kasta ka muuqda oo firfircoon.